بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، marka hore waan ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato xafladan barakaysan ee beyt ilaahay uu ka raali yahay lagu dhisayo oo ay soo qalqaaliyeen walaalaha qolkan weyn maaragtay ka adeega. ilaahay ajar iyo xasanaad fara badan ha inka siiyo. labada isguursatana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha isu barakeeyo. insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan mawduuc munaasabadan ku saabsan caaway insha allahu tacaala aan kala qayb qaato, kaasoo ku saabsan guurka, fadliga iyo faa-iidada uu leeyahay. maxaa yeelay guurka waxaana amray nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaana amray oo na faray. marka fadliga iyo ajarka uu leeyahay wax la soo koobi kara ma ahan. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana amray. waa waxa oo ummaddu ay ku dhisan tahay oo ay ku maaragtay badatay insha allahu tacaala. faa-iidooyin aan la soo koobi karin ayuu leeyahay. insha allahu tacaala kuwaasaan wax ka taabanaynaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay: fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathnaa wa thulaatha wa rubaac fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidah. nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam: yaa macshara ashabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj fainahu agadu lilbasar wa axsanu lilfarj waman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa. sadaqa rasuulullah. walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala guurka waa uu na faray. qur-aanka meelo badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu guurka uga hadlay. ilaahay wuxuu leeyahay guursada waxaa idiin diib noqday oo dumarka ah 2, 3, 4. waa haddii shuruuddeedii la helo. haddii la waayana ilaahay wuxuu leeyahay haddii la waayana 1 xabo. shuruuddii haddii la waayo waa 1 xabo. macnaha haddii aad cabsataan inaadna cadaalad samayn 1 xabo. adugu waa mawduuc dheer oo sharaxaad u baahan, laakiin hadda ujeedka aan ka leenahay waxa weeye ilaahay waana amray guurka. ilaahay subxaanahu wa tacaala guurka ayuuna amray. guurku marka wuxuu leeyahay fadli iyo faa-iidooyin aakhiro iyo adduunyo intaba ah. sidaas darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna jeclaysiinayaa oo uuna amraya. xikmadaha guurkan ilaahay uu u jiday ma ahan inay iska tahay shahwo kaliya, inay iska tahay jacayl kaliya. xikmado fara badan oo aakhiro iyo adduun ah ayaa ku jira. xikmadaha ama faa-iidada guurku uu leeyahay waxaa ka mid ah alcimraanu alkowniy bitanaasul wa takhiiru lummati almuxamadiya. camiridda koonkan la camirayo oo taranka lagu camirayo. oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadamka wuxuu ka dhigay khaliifka dhulkan ka khaliifka ah oo camiraya oo maaragtay degan. dadkaas marka dhulka camirayaahi waxay ku bada karaan guur. sidoo kale xikmaddii waxaa ka mid ah in ummaddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam la badiyo. haddaan guur xalaala la helin ummaddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ma badanayso. nebiguna wuxuuna amray inaan guursanno oo maaragtay halkaas ummaddii ay ku badato
oo maalinka qiyaama nebi walba wuxuu ku faanayaa ummadda raacsan, nebigeennuna wuxuu ku faani doonaa ummaddiisa oo ummadaha ugu badan. markaasuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam: tasawaju lwaduud alwaluud fa innii mukaahirun bikum lumam. wuxuu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam, waxaad guursataan alwaduud, gabadha jacaylka badan guursada, gabadha jacaylka badan guursada. jacaylkeedaas waxaa laga ogaanayaa dadka ay kasoo jeedo hooyadeed iyo dadkaas ayaa laga ogaanayaa. meeshaas waxay noo caddaynaysaa waxyaalaha dadku ay moodeen in reer galbeed ay iska leeyihiin oo jacaylka markii laga hadlayo waxyaalahaas inaysan ahayn hawl oo ayagu ay iska leeyihiin. ee nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam uu nooga hadlay. weliba eraygan markii carabiga laga hadlayo waa mubaalaqa, yacni waa amhilatu mubaalaqa, midda jacaylka badan wey, midda jacaylka badan. marka jacaylkii inuu muhiim yahay oo reerkuba uu ku dhismayo jacaylka ayaa meesha nooga cad, oo jacayl la-aantiisna wadajoogu uusan macaan lahayn. aayadda qur-aanka soo socotana insha allahu tacala waa ku sharixi doonaa. markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay guursada midda jacaylka badan, haddana dhalmada badan, oo laga garanaya inay dhalmo badan tahay dadka ay kasoo jeeday. maxaa yeelay anigu waxaan inkugu faanayaa maalinka qiyaamo, aan ummadaha inkugu faanayaahoo aan leeyahay atbaacdaydu waa taas, dadkaas faraha badan ayaa iraacsan. riwaayo kale wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam: tanaakaxuu takthuruu fa innii ubaahi bikum lumama yowma alqiyaama. guursada waad badanaysaane anigu maalinka qiyaamo ummadaha ayaan inkugu faanayaa. waxaa ka mida guurku faa-iidooyinka uu leeyahy, waqtigu maadaama uu yaryahay waan soo kookoobaynaahe. in qofku uu ka dhowrsado dembigii iyo fisqigii iyo maaragtay macaasidii inuu ka dhowrsado ayaa ka mida guurku faa-iidada uu leeyahay. waana midda nebigu uuna amraya calayhi salaatu wasalaam oo uu leeyahay: yaa macshara ashabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatasawaj. dhallinyarada ayuu nabigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam, maadaama ayaga ay shahwadoodu badan tahay, ayada dareenkoodu badan yahay, ayaga is-ilaalintoodu ay yar tahay, inay macaasidii ku dhacan ay fududdahay, ayuu nabigu dhallinyarada la hadlay calayhi salaatu wasalaam. markaasu wuxuu leeyahy: war dhallinyaradow, gruubka dhallinyaradow, qofkii adinka in ka mid ahoo baa-ada awooda. baa-ada macnayaal badan ay leedahay. waxaa la yidhaahdaa waa maalinkaasi habeenkaas nafaqada loo baahan yahay iyo waqtigaas fasalkaas xilligaas lagu jiro labiskii gabadha. haddii qofku uu awoodayo ha guursaduu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. qofkii aan awoodayna nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ha soomo, maxaa yeelay soonka ayaa shahwadii ka jebinaya. marka wuxuu noqonayaa marka qofku maadaama nabigu uu yiri ha guursado, wuxuu kaga dhowrsanayaa macsidii iyo dembigii ayuu uga dhowrsanayaa. dhanka kale wuxuu ka yahayba amarkii ilaahay oo la fartoomo, amarkii rasuulka oo aad fartoontid, iyo sidoo kale amarkii ilaahay la fartoomo ilaahay guursadu ilaana yiri waataan kusoo bilaabana. marka amarkii rasuulka iyo amarkii ilaahay aad fartoontid iyo adigoo maaragtay macaasidii iyo dembigii uga dhowrsanaya, sida uu warinaya sidoo kale xadiid imaamu xaakim kitaabkiisa mustadraga uu ku warinayo. wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam: man rasaqahu allahu imra'atan saalixa faqad acaanahu calaa shatri diinih falyattaqi llaha fi shatri athaani. wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam: qofkii ilaahay ku arsaaqo oo maaragtay ilaahay uu siiyo xaas wanaagsan, zawjo wanaagsan, qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo, ilaahay waa wuxuu u kaalmeeyey oo ku caawiyo oo ku gacan siiyey diinkiisa barkiis, oo diinkiisa qayb ka mida ayaa u nabadgelaya. maxaa yeelay haddii uu maaragtay xibinkiisii taranka ilaaliyo, haddii uu indhihiisii ilaaliyo, haddii uu gacnihiisii ilaaliyo, waxaasoo xibnahaasoo dhan haddii uu ka joogsado macaasidii uu ka dhowrsado oo xaaskiisa ku dhowrsado, diinkiisii kala bar ayaa u nabadgalay. ee barka soo haray ilaahay subxaanahu wa tacaala ha uga cabsada ayuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam. oo qofka markii xaas fiican ilaahay uu siiyo,
markastaba labada qof midkii diintu cabirta maahane kan kale dhanka kale sidoo kale waa ka sheeganya. oo hadda markii nabigu uu yiri calayhi salaatu wasalaam qofkii ilaahay xaas fiican siiyey ninkii alla sheegay, dhanka kalena gabadhii ilaahay uu siiyey nin fiican waa sheeganta, ayana dhinaceeday ka sheeganta. marka qofkaas ilaahay uu lamaano fiican uu siiyey oo saalixa, diinkiisii barkiisii ayaa u nabadgalay, diinkiisii barkiisii ayaa u dhowrsoon, ee barka kale ha ilaashado oo ilaahay ha uga boqo. sidoo kale maaragtay waxa weeye fawaa'ida nikaaxa waxaa ka mid ah, waxaa xaqiiqoobaya jacaylkii iyo raxmaddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka ku sheegay, iyo isku soo dumankii oo maaragtay labada isqaba ay isu soo dunmamayeen oo isku xirmayeen, iyo sidoo kale maaragtay bulsho halkaas isku xiran ayaa ka dhalanaysa. ilaahay waa ka qur-aanka ku leh wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma. ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a oo kowniga ah inuu idin abuuray nafafyaalkiinana uu idinkaga abuuray xaasas si aad ugu soo dumantaan, si aad ugu soo hoyataan, si aad ugu soo nasiino tagtaan, shaqadii tacabkeeda iyo dhibkeeda marka aad ka timaadaan si aad ugu soo nasiino tagtaan oo ugu soo dumantaan oo meel aad ku xasishaan ay idin noqdaan, ayaa maaragtay uu ilaahay idin abuuray, naftiinuuna inkaga abuuray xaasas. ilaa nebi aadama laga soo jeexay soo maaha. ilaahay dhexdiinana wuxuu dhigay kalkacayl iyo jacayl iyo naxariis. marka mawadadaas waa fasiro badan ayay leedahay. hadda mawduucana waxaaba quseeya jacaylkii runta ahaa inuu yahay, amba hadda waa fasirada qeyb ka mid ah. marka jacaylka waa wax oo muhiima oo qoyska maaragtay uu ku dhisan yahay. inuu ninku xaaskiisa jacaylka u qabo uu caddeeyana waa wax oo diiniya oo maaragtay labada qof qalbigooduna ay iskugu sii dhismayaan. nabiguna calayhi salaatu wasalaam sayida khadiija markii uu ka hadlayay waatuu lahaa qad rusiqtu xubbahaa aw kama qaala sala allahu alayhi wasalam, waxaa laygu arsaaqay jacaylkeeduu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid a waxyaalaha oo guurka uu leeyahay iyo faa'iidada uu leeyahay, waa wax oo risqigiiya kusoo xasilaya, arsaaqdiiya ku ballaaranaysa, barakadii ayaa kusoo degaysa. guurka marka qofka ilaahay waa ku arsaaqaho faqriga ayuuba uga saaraa. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay wa ankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqara'a yugnihim allah min fadlih wallahu waasicun caliim. ilaahay wuxuu leeyahay u guuriya gabdhihii oo maaragtay garoobada ahaa, u guuriyo idinka in ka mid ah saalixiinta dadka ah oo maaragtay addoomihiina ragga ah iyo gabdhihii addoomaha ah labadaba ahna u guuriya haddii ay yihiin faqri uu yidhi ilaahay, oo dad fuqaraa ay yihiin, ilaahay baa deeqi doono, fadligiisa ka deeqi doono. ilaa ilaahay wuxuu haystaa meel haddii wax kasta uu ka bixiyo oo qof kasta waxa uu rabo uu siiyo aan waxba ka barmayn. ilaahayna fadligiisu waa waasic. ilaahay qof kasta haddii uu siiyo waxba kama baryayaan. xadiidkii xadiisulqudsiga macnihiisu waatuu ahaa low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum qaamuu fii saciidin fasa'ala kullu waaxidin faactaytuh maa dalika mima cindii shay-a ilaa kamaa yanqusu lmikhyatu idaa udkhila albaxr aw kama qaal. xadiidkii xadiisulqudsigaah ilaahay wuxuu leeyahay addoommahaygow haddii aad dhammaantiin kii hore iyo kii dambe jinni iyo insi haddaa meel iskugu timaadaan oo qof kastahay waxa uu rabo i weydiisto, ee qof kastahay wixii u weydiista aan siiyo, aniga agteeda waxa yaalla kama nusqaamayaan, oo waxaas aan idin siiyey kama nusqaami karaan ilaa tusaale haddaan idin siiyo cirbad badda la geliyey wax ay ka nusqaamisoo kale ma ahan. oo cirbad badda la geliyey waxa ay nusqaamiso waxaba ma ahan. cirbad maaragta badda la geliyey waxba ma nusqaamiso. marka guurka arsaaqda ayaa ku ballaarata, guurka arsaaqda ayaa maaragtay ku badata, barakada ayaa kusoo degta. marka ma ahan guurka qofku inuu ka cabsado waxa weye uu is yiraahdo xaggee ka beeli doontaa, xaggee wax ka heli doontaa,
adiga iyo qofkan kaloo isguursanaya labadiinaba markaad kala joogteen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa idin arsaaqi jiray marka isku timaadaanna arsaaqdii unbuu idin siinayaa xadiidkii kaloo imaamu abi daawuud warinayana waa tii nabigu uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam halaahatun xaqun cala allahi cawnuhu almujaahidu fi sabiili illah waalmukaatabu aladii yuriidu aladaa waannaakixu aladii yuriidu alcafaaf wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam 3 qof waxaa ilaahay waajib ku ah oo macnaha ilaahay uu ballan isi saaray macnaha ilaahay wuxuu ballan qaaday oo dusha saartay inuu u kaalmeeyo 3 qof inuu ilaahay u kaalmeeyo ayuu waajib iskaga dhigo ilaahay uu asagu ballan qaaday kan koobaad waxa weeye wadadii ilaahay qofkii ku jihaadayay jihaadkii saxda ah oo shuruudda laga helay qofkii ku jihaadayay kan labaad waxa weeye qofkii mukaatabka ahaa oo maaragtay la kitaabeeyey oo raba maaragtay wax uu iskaga bixiyo kitaabadaas waa hadda mas'ala jirta maaha waqtigan shaqaysa kan saddexaad waxa weeye qofkii guursaday oo raba inuu ku dhowrsado waa kan hadda mawduuceena maanta wannaakixu aladii yuriidu alcafaaf kii guursaday asagoo doonaya inuu ku dhowrsado oo isku ilaaliyo macaasidii kaga fogaado waxa weeye amarka ilaahay ku fartoomo dunuubtii iska ilaaliyo indhihiisii ku dhowrto xibinkiisa taranka ku dhowrto jirkiisa dhan macaasi uga ilaaliya qofkii sidaas doonaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ballan qaaday inuu u kaalmeeyo inuu u kaalmeeyo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ballan qaaday walaalayaal guurku waa sunnadii rasuulka waa sunnadii ambiyada oo dhan ambiyada dhan sunnantoodii weeye marka waxa weeye waxaa tahay oo faa'iidooyinka guurka ka mid a markii aad guursanaysid niyadaadii haddii ay xaadir tahay sunnadii nabigaad noolaynaysaa calayhi salaatu wasalaam sunnadii ambiyadoo dhan aad noolaynaysaa bayd islaamhaad dhisaysaa niyadaada inaad adigu ballaarisid weeye markii aad guursanaysid waa niyadaada waa inaad ballaarisid markaasuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam 4 min sunani lmursaliin 4 shay ambiyada sunnooyinkeeday ka mid yihiin uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ambiyadii rusushii sunnooyinkooda ayaa 4 shay ka mid yihiin kan koobaad muxuu yahay xishoodka kan kale labaad waxa weeye wixii udaygii iyo catarkii iyo barafuunkii iyo saddexaad cadaygii afraad nikaaxi marka nikaaxu waa sunnadii rasuulka waa sunnadii rusushii hore waxa weeye marka qofkii nikaaxa diidaahi sunnadii rasuulku diiday calayhi salaatu wasalaam laakiin qofku duruufa waa qaban kartaa oo waxa weeye duruuftiisa inuu fiiriyo waa u sax laakiin diidmo waa inaysan meesha soo gelinoo anuu nikaax ma raba iyo rag oo asxaabtahoo ninba uu wax sheegtay ayaa jiray hadda qisadooda waa qiso dheere marka nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii nikaaxu waa sunnadeeda qofkii diidana waxa weeye aniga dadkayga faadilka ah oo dooran kama mid ah nikaaxu waxa weeye qofka qalbigiisii ayuu wuxuu ka ilaalinayaa wasaawistii iyo wixii qalbigiisa kusoo dhici lahaa ee dumar ku saabsanaa ama gabadha wixii qalbigeeda kusoo dhici lahaa oo rag ku saabsanaa markay cibaadadoodii maaragtay ay ilaahay la xiriirayaan markay qur-aankooda akhrisanayaan markay dikrigooda kale ay ku jiraan wixii qalbigooda shaydaanku kusoo tuuri lahaayoo dhan waa kaga harayaan waa ka baxayaan maadaama meel xalaala oo ay shahwadii ku gutaan ay heleen nikaaxu waxa weeye indhihiiyuu ilaalinayaa xibinkii taranku ilaalinayaa inaad daacadii u soo jeesatid oo aad ilaahay si saxa u caabudid ayuu kugu kaalmaynayaa oo markii ilaahay uu ku yidhi qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum oo ilaahay wuxuu ku leeyahay raggii mu'miniinta ahaa nabi maxamedow waxaad ku tiradaa ragga mu'miniinta indhahooda ha laabeen farjiyadoodana ha xifdiyeen gabdhihii mu'miniinta ahaana sidoo kale ilaahay ku yiri oo iyagana indhahooda ha laabeen farjiyadoodana ha xifdiyeen marka taas waxaa ku caawinaya oo u fududaynaya inay indhahooda ajnabiga ka laabaan inay maaragtay farjigooda ilaaliyaan waxaa xibinkooda taranka inay ilaaliyaan waxaa u fududaynaya nikaaxi xalaasha ahaa ayaa u fududaynaya maxaa yeelay aragtidaasi waa dhib badan tahay qofka diinkiisii dhaawacaysa hadduu qofku sii daa'imo aragtida midda koobaad qofka oo sida kama uga dhaxday dembi ma aha laakiin midda labaad waa loo qorayaa annadratu sahmun masmuum min sihaami shaytaan daymadu waa leeb oo la sumeeyey waran sumaysan weeye oo shaydaanka warmihiisa
كمده قفك كتغوير إلهي حديث القدس وي أو النبي laga wariyay calayhi salaatu wasalaam qofka aniga cabsidayda uga taga oo daymada iska ilaaliya aniga cabsi uu iga cabsanayo qofka uga taga waxaan ugu badalayaa huu leeyahay ilaahay iimaan uu dhadhankiisa qalbigiisa ka helo allahu akbar iimaan dhadhankiisa uu qalbigiisa ka helo ayaan ugu badalayaa huu leeyahay nikaaxa waxaa ku sugan fawaa'idiisa ka mid ah cishradii iyo mucaamaladii iyo dhaqankii wanaagsanaa oo ilaahay ku amray oo ilaahay uu yiri wacaashiruhunna bil macruuf dumarka wanaag kula dhaqma kaas ayaad fulinaysaa kaas culayskiisaad ku sabraysaa mas-uuliyadii aad gudanaysaa mas-uuliyadii ayaad dareemaysaa maxaa yeelay qofku intuusa guursan ka hor hadda waxa weeye asaga in laga mas-uul yahay ama maaragtay naftiisa kaliya uu ka mas-uul yahay ayay u badan tahay nikaaxu waxa weeye qofka wuxuu dareensiinayaa mas-uuliyadii ayuu dareensiinayaa waxaa ka mid ah faa'iidooyinka nikaaxa tarankii awlaadii wixii aan ka helaynay waxaa ka mid ah xuquuq ayaa u qumaysa qof mas-uuliyad qaaday ayaa tahay xuquuq ayaa gudanaysaa xuquuqdaas aad gudanaysid iyo waajibaadkaas aad gudanaysid iyo nafaqadaas aad bixinaysid ajar fara badan oo aan la soo koobi karin ayaad ka helaysaa haddaad marka aad sidii la raba u gudatid waxa weeye ajar fara badan ayaad ka helaysaa maxaa yeele xadiidkii saxiixa nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dinaarun anfaqtahu fi sabiili illah wa dinaarun anfaqtahu fi raqabatih wa dinaarun tasadaqta bihi calaa miskiin wa dinaarun anfaqtahu calaa ahlik acdamuha ajra alladii anfaqtahu calaa ahlik u fiirsa nabigu wuxuu sheegay waxyaalo fara badan oo haddii aad bixidid mid kasta ajar fara badan aad ka helaysid laakiin yaa ugu sii ajar badan wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam dinaar aad ku bixisay ilaahay wadadiisa aad ku bixisay fii sabiilillah aad ku bixisay iyo mid aad ku bixisay qof addoonnimad loo haysto si addoonnimadkaas looga badbaadiyo iyo mid aad ku bixisay in aad miskiin ku sadaqaysatid iyo mid aad xaaskaagii iyo ehelkaagii ku nafaqayso ku biishay kulligood ajar ay leeyihin laakiin waxaa ugu ajar badan uu yidhi ilaahay nabigu calayhi salaatu wasalaam midka aad ehelkaaga xaaskaaga caruurtaada aad ku nafaqaysay ayaa ugu ajar badan marka nafaqada iyo biilka la dhiibayo waa mas-uuliyadiyaa gudanaysaa marka aad dhiibaysid haddii aad iska bixisid adoon wax niyaa lahayn waajibkiyaa kaa dhacaya laakiin haddii aad niyo ku bixisid sidii xadiidkii bukhaariga uu ahaa adigoo taxtasib wa anta taxtasib ajar ilaahay ka raba ajaraad ka helaysaa waxyaalaha hadda la bixinayo dhan waxyaalaha caadaadka ah oo la samaynayo dhan haddii aad niyad fiican la xiriirisid ajaraad ka helaysaa cuntadii markaa cunaysid haddaad tiraha daacada ilaahay ugu xoogaysanaya hurdadii markaa seexanaysid daacada ilaahay ugu soo nashaad noqonaya guurkii haddaad tirahdee waa xaaraantan uga dhowrsanaya xalaashii aan samaynaya awlaadan tabcana wax niyo fiican haddaad la xiriirisid biilkii iyo nafaqadii markaa bixinaysid haddaad niyeysatid waajibkii ilaahay ku saaray inaad gudanaysid oo ajar ku rabtid ajarkaad helaysaa marka waxa weeye waa ajar wey wax kasta ajar ayaa ku sugan haddii maaragtay aad niyadii fiicneed aad la timaadid niyadda fiican ayaa waa muhim waxaa guurka faa'iidadiisa ka mid ah awlaaddii wanaagsaneed ayaad helaysaa awlaaddii durriyadii dayibada ahayd faracii wanaagsanaa ayaad helaysaa faracaas haddii uu kuu noolaado oo uu kuu sii joogo hadda waxa weeye aakhiriya adduunba way ku anfacayaan waa tii nabigu uu lahaa calayhi salaatu wasalaam idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ilaa min halaath haddii qofka bini aadanka uu dhinto camalkiisa waa go-a markii laga reebo saddex sadaqo jaariye ah iyo cilmi lagu intifaacsado iyo walad saalix ahoo usoo duceeya marka waladkaagii saalix ahaa haddii ilaahay walad saalixa ku siiyo waxa weeye oo tarbiya fiican hadda waladka saalix iskama noqonayo haddaadan ku dadaalin tarbiyadiisa hagaajin waxaa ku quudinaysa aadan fiirin dhaqankiisa aadan ilaalin markaa ka dadaashid waladkii saalixa ahaa haddii uu kaaga dambeeyo ducadiisiyaad helaysaa waa guurka faa'iidooyinkiisii hadduusa kaa dambaynna oo kaa horeeyo kuu saqiirana asagana wuu ku anfacayaa waa guurka faa'iidadiisii maxaa yeele xadiidkii nabigu atuula calayhi salaatu wasalaam maa min muslimin yamuutu lahu halaathatu min alwalad lam yablugu lxinth ilaa talaqawhu min abwaabi aljannati athamaaniya min ayiha shaaa dakhl qofka haddii oo 3 caruur ay u dhintaan oo u saqiiraan qofka muslimka ah oo ayagoon qaangaarin
albaabada macnaha jannada ee sideedahay kula kulmayaan midku doonuna ka gelaya macnaha ajarka farabadidiisa ayuu nabigu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam. marka awlaada guurka a ku heshid hadday kuu joogaan oo kaa dambeeyaan oo saalixiin kuu noqdaanna faa'iiday kuu tahay. haddii maaragtay ay kaa hormaraan oo kuu shafeecaan ama kuu saqiiraanna waa faa'iido kale wey. marka faa'iidada guurka ayay ka mid tahay awlaadu. faa'iidada guurka waxaa ka mid ah ilmihii aad korinaysay, aad tarbiyeynaysay, tarbiyadooda hagaajinaysay, aad waxbaraysay, aad ku dadaalaysay, ajar fara badan aad ka helaysaa. ajar fara badan aad ka helaysaa maalinka qiyaamana ajarkaas wax weynu kuu noqonaya. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa sayida caaisha waxay uga sheekaysay naag u timid iyadoo 2 gabdhood wadata. markaasay wax weydiisatay. markaasaa caaisha waxay tiri 1 xaboo timira ayaan agtayda ka helay. timirtii ayay siiday. timirkii markii ay siiday ayay 2dii gabdhood u kala qaybisay xabadii timirtahayd, iyaduna waxba kama cunin. markaas ayay inta istaagtay iska baxday. nabiga yimid calayhi salaatu wasalaam. markaasaan u sheegay tiro waxaan iri in arrinta islaantaasi sidaasay samaysay. markaasuu nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam markay uga sheekaysay islaamtaasi haweenaydaasi sidii caruurtii u barbaarinaysay, u korinaysay, wixii yaraa heshay in ayaga u qaybisay. uu nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam man ibtuliya min hadhihi albanaati bishay kunna lahu sitran min annaar. qofkii la siiyo gabdhahan oo waxa weeye macnaha gabdha lagu imtixaano oo waxa weeye ku dadaala asturay u noqonayaan maalinka qiyaamo. riwaayo kale fa axsana ilayhinna qofkii man yali min hadihi albanaati shay fa axsana ilayhinna kunna lahu sitran min annar aw kama qala sallallahu alayhi wasallam. qofkii tawalliya oo gabdhahan arrintooda u quma oo mas-uuliyadooda qaada gabdhaha ee hagaajiya tarbiyadooda oo u wanaag fala maalinka qiyaamay naarta xijaab uga noqonayaan. marka ilmahaas aad ka helaysid guurka oo aad ku dadaalaysid oo aad tarbiyeynaysid oo aad waxbaraysid oo aad biilaysid oo aad korinaysid oo aad ku dhibtoonaysid qiyaamaday ku anfacayaan. haddaad ku dadaashid maalinka qiyaamay ku anfacayaan. marka nafcigaas maalinka qiyaamo waa faa'iido ka timid guurkii. faa'iido guurkii ka timid wey. riwaayo kale nabigu wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofkii 2 gabdhood nafaqeeya oo biila oo koriya ilaa ay qaan gaaraan maalinka qiyaamo aniga asagu annagoo sidaan ahaan imaanayna oo asagoo ii dhow ayaan maalinka qiyaamo imaanaynaa. guurka marka waxa weeye faa'iido badan u leeyahay. waxaa ka mid a qofkii oo dhowrsanaada waxa weeye waa tii uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wa fii budci axadikum sadaqa. 2 qof markay isku tagayaan shahwadooda gudanayaan ajar ayay ka kala helayaan. guurka mas-uuliyaddii waa naga kasoo hadalnay. gabadha laftigeedu guurka mas-uuliyada kasoo xigsanayso gurigii ayadaa mas-uulka ah. waxa weeye adeecidda ay zawjkeeda adeecayso oo ay ka dambaynayso oo ay mas-uuliyaddii saareed kasoo baxayso ajar fara badan ayay ka helaysaa. jannadayna ku galaysaa sida axaadiista fara badan ay kusoo aroortay hadda aan u banbixi karin. waa khayr ay ka heshay guurkii. khayr ay ka heshay guurkii waxa weeye haweenayda saalixada ah waa adduunyada waxa ugu khayrka badan. sidoo kale ninka saalixa ah oo gabadho ay hesha adduunyada waxa ugu khayrka badan wey. addunyaa mataac wa khayru mataaci dunya almar'atu saalixa. xadiidkii saxiixu muslimka ahaa adduunyadu waa raaxo wax yar oo lagu raaxaysta wey. raaxadaasna waxaa ugu khayr badan xaas wanaagsan. dhanka kale gabadhiina sidoo kale wey nin wanaagsan wey ugu khayr badan waxay hesho. marka guurku faa'iidooyinkiisu wax lasoo koobi kara ma ahan. waa wax oo aad iyo aad u fara badan. qofka inuu haddii ilaahay uu karsiiyo inuu guursado waa aad iyo aad ayuu muhiim u tahay. guur la-aantu macnaha aad ma fiicna. qofku hadduuba kari karo ma fiicna. waxaa laga wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu yiri xadiidka culammada qaybna waa mursala yidhaahdaane miskiinun rajulun laysat lahu ra'a. qofka miskiinka ah oo miskiinka ah waa ninaan xaas lahayn. markaasaa leeyahy rasuulka ilaahay hadduu rabo ha noqdo nin hantiilo ah. markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu rababa hantiilo ha noqdo. haddana wa miskiinatun imra'atun laysa lahaa zawj. gabadha miskiinada ah oo miskiinada ah waa naag aan nin lahayn. markaasaa leeyahy rasuulka ilaahay hadday rabtaba hani oo hanti badan hadday rabtaba ha noqotee ka waran hadday hanti leedahay.
markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xataa hadday hanti leedahay waa miskiin qofku mar haddii uusan lahayn guri uu ku hoydo, guri uu usoo hirto, waxa weeye keligiis uu iska nool yahay, qofkaas waxa weeye waa qof miskiina. ilaahay subxaanahu wa tacaala reerka la dhisayo iyo reeraha la dhisi doono dhammaantood allaha barakeeyo. ilaahay ha ka dhigo kuwii maanta siday diinka iskugu guursadeen oo iskugu baahdeen ugu dhaqma, awlaad barakaysan allaha siiyo insha allahu tacaala. intaas ayaan kusoo koobayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.